iyadoo Somaliland madax banaanadeeda dib u la soo noqotay sanadkii 1991 ayaa madax banaanadaasi waxay ahayd mid hore ay u heshay sanadkii 1960 kadib 8 sanadood oo ay Somaliland ku horsatay gumaysigii reer Yurub. gumaysigaas oo bilaabmay markii ninka cadi uu ka soo degay qaaradda Afrika kadibna isku xeeray oo qabsaday 1885 ayay ahayd markii dadka Soomaalidu ay u kala samaysmeen 5 qaybood iyadoo kala qaybintooda si sal looga dhigay deegaankii iyo dhaqan wadaagii ay qayb waliba lahayd. sidoo kalena ay ahayd qorshe ay gumaystayaashii reer Yurub ku kala qaybsadeen deegaano markii horeba aanay ka jirin dawlad ka dhaxaysa, hase yeeshee meelaha qaarkood ay ku sugnaayeen wakiillo matalayay dawladdii Cusmaaniyiinta ee xarunteedu ahayd dalka Turkiga. xilligaa waxaa aasaasmay dawladda ilaa maanta jirta ee Somaliland oo sidatay magaca dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku xukumayay. British Somaliland. British Somaliland. xukunkaas oo sii socday ilaa iyo markii ay xorriyaddeeda qaadatay 26 Juun ee sanadkii Afrika, iyadoo ummadda Somaliland ay soo martay halgan hubeysan iyo mid siyaasadeed oo ay muddo dheer ku doonayeen inay iska tuuraan heeryadii gumaystaha. dhankeedana ay dawladda Britain ku adkaysan jirtay in joogitaankeeda Somaliland iyo gacan ku haynteedu ay muhiim u tahay beesha caalamka, isla markaana ay halkaa u isticmaasho saldhig ay ku hakinaysay ganacsiga saddex geesoodka ah ee dadka madow ee xilligaas socday, iyo sidoo kale ilaalinta ammaanka marinka Baabalmandab oo isku xidha badaha saddexda ee gobolka. marinkaas oo ay Britain dacalka kalena ka fadhiday oo ay xukumaysay magaalada Cadan iyo guud ahaanba koonfurta dalka Yemen. Under Vichy control. 1898 ilaa 1919 ciidamadii Ingiriisku waxay gudaha Somaliland kala kulmeen dagaal kaasoo deegaanada bariga Somaliland ku dhex maray ciidankii daraawiishta iyo militarigii boqortooyada Ingiriiska. 1913 ciidamadii Camel Corps Ingiriisku watay waxaa lagu jabiyay dagaalkii ka dhacay deegaanka Dulmadoobe ee degmada Kirid ee gobolka Togdheer. waxaa kaloo labada dhinac ay iskaga hor yimaadeen dagaalo kale oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii Fardhidin, Gumburo, Daratoole iyo Jidbaal. hase yeeshee waxaa iyana jiray dagaalo dhex maray daraawiishta iyo qaybo ka mid ah beelihii reer guuraaga ee Somaliland. kadib muddo 21 sano oo duulaamo iyo dagaalo kulul dhex mareen dawladda Ingiriiska iyo ciidamadii daraawiishta ayaa sanadkii 1919 ciidamadii Ingiriiska ay dusha sare ka taageerayaan ciidanka cirka ee boqortooyadu Royal Air Force oo adeegsanayay diyaarado dagaal ay dusha sare ka duqeeyeen xaruntii daraawiishta ee degmada Taleex. weerarkaasi oo sababay inuu dhaco maamulkii dhisnaa ee daraawiishta hogaankii sare uu ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasanna oo u tallaabo dhinaca gobolkii la odhan jiray Soomaali Galbeed, halkaana uu ku soo gabagaboobo halgankii daraawiishta waday. inkastoo halgankaasi uu ka tegay rabitaan xornimo doon ah oo ku dhex beermay bulshadii xilligaa jirtay. sidoo kalena weeraradii ciidanka cirka ee Britain ku qaadayeen xaruntii Taleex waxaa ku naf waayay 100 qof oo dumar iyo carruur u badnaa oo ku sugnaa xaruntaas. xilligaa wixii ka dambeeyay boqortooyada Ingiriisku waxay sii waday joogitaankeedii Somaliland intii u dhaxaysay sanadihii 1922 ilaa 1930 waxaa fashilmay qorshayaal ay boqortooyadu ku doonaysay inay dibadejin kaga samayso deegaanadii dagaaladu aafeeyeen ee bariga Somaliland, halkaasoo lagu tala jiray in laga aasaaso dugsiyo waxbarasho isla markaana lagu hagaajiyo hanaanka xoolo daaqsimeedka iyadoo loo xidhi lahaa seerayaasha loona qodi lahaa dhaamam biyo qabatimeed. fulila'aanta qorshayaasana waxaa lagu macneeyay mid ku timid dadkii deegaanada ah oo aan xilligaa u bislayn wax wada qabsi dhex mara dawladda Ingiriiska. bishii August 1940 waxaa bilaabmay duulaankii ay gumaysiga Talyaanigu ku doonayeen inay ku wada qabsadaan gobolka Geeska Afrika oo qayb ka ahayd Somaliland, taasoo ahayd guushii kaliya ahayd ee Talyaanigu ka gaadheen dagaalkoodii ay ciidamadu ka galeen meelo ka baxsan qaaradda Yurub, kuwaasoo ay kaga horjeedeen xulafadii Allied Powerska intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. ka hor intii aanay ciidamadii Talyaanigu qabsan Somaliland waxay difaacda kala kulmeen dalka Ethiopia oo muddo 8 sano ah oo Talyaanigu la dagaalamay. 1935 madaxweynihii dalka Talyaaniga Benito Mussolini waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu gudaha u galeen dalka Ethiopia. Arriverà al benessere, alla
potenza e alla gloria. Black men, the bugle call, come on, come all the drums are beating and the bugle call, come on, come on, don't mind what Mussolini said, let us march in battle array, and take a gun in our hand and defend the Ethiopian war, declare. At the League of Nations in Geneva, magaalada Geneva oo xarun u ahayd ururkii ummadaha ama League of Nations oo ah urur ku jiray kaalinta ay maanta ku jirto qaramada midoobay ayaa xilliga dhigaha u raariciyay hadaladii qiirada lahaa ee boqor Haile Selassie ka jeediyay kulan sanadeedkii golahaasi ee sanadkii 1935 isagoo boqorku sheegay in dalalka waaweyn ee caalamka ay waji gabax ku tahay gardarrada qaawan ee Talyaanigu ku hayo dalkiisa isla markaana ay Itoobiya u loogeen diktaatoorkii Mussolini. His Majesty Negus Haile Selassie, I call upon the first delegate of Ethiopia. difaaciga Itoobiyaanku kaga hortageen gumaystiga Talyaaniga waxa uu noqday mid xilliga helay taageero shacbiyeed oo ballaaran oo ka imanaysa guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaan dadkii madooba ee daafaha caalamka ku kala noolaa kuwaas oo meel kasta ka oogay banaanbaxyo ay kaga horjeedeen duulaankii Talyaanigu ka waday gudaha Itoobiya. dalka Mareykanka waxaa safaf dhaadheer geli jiray dhalinyaro voluntary oo Mareykanka madooba kuwaas oo doonaya inay ka soo dagaalamaan dalka Itoobiya naftoodana u huraan dhulkooda hooyo ee Afrika iyo boqorkooda Haile Selassie. waxaana magaalada New York laga furay xarun weyn oo lagu magacaabi jiray Ethiopian World Federation taasoo qaabilsanayd isku dubaridka taageerooyinka loo fidinayo dalka Itoobiya. waa kan Mr. Hillman oo inooga warramaya shaqadii xafiiskaasi. Black American rallied towards the cause and Black Jamaicans rallied. Mareykanka madow ee isu taagay wax ka qabashadii arrinka ka socotay Itoobiya iyo sidoo kale dad ka yimid wadanka Jamaica ayaa lahaa asaaskii ururkaasi oo xaruntiisa laga furay magaalada New York. dadkaasi waxay ururin jireen lacag dawooyin dhar iyo wax kasta oo ay heli karayeen waxayna u diri jireen boqorkii Haile Selassie. dhanka qaaradda Latin America waxaa guri walba laga dareemayay qiirada ay dadku u hayaan dalka Itoobiya halkaas oo ay dagaalyahano Itoobiyaan oo muruqmaalihi dagaal difaacu nafsi ah ay ula badheereen mid ka mid ah quwadihii xilliga ugu awoodda weynaa dunida oo ah dalka Talyaaniga. tusaale ahaan dalka Jamaica beeraleyda wadankaasi waxay soo ururin jireen geedka qasabka ee sonkorta laga shiilo kaasoo ay taageer ahaan ugu soo diri jireen dhanka Itoobiya. inkastoo haddaba ay Talyaanigu deegaanada qaarkood qabsadeen xilliga haddana xoogagii wadaniyiinta ee Itoobiyaanku waxay jibiyeen ciidankii Talyaaniga ugu dambeyntiina Talyaaniga waxaa lagu khasbay inuu dib uga baxo dalka Itoobiya. jabkii halkaa ka gaadhay Mussolini ayaa markii dambe qayb ka qaatay in Talyaaniga iyo xulafadiisa Axis Powersku ay sidoo kale ku jabaan dagaalweynihii labaad ee dunida. xilligaa wixii ka dambeeyay ciidamada Talyaanigu waxay bilaabeen olole military oo ay ku doonayeen inay ku soo ceshadaan moralkii ciidankooda kuna ilaawaan guuldaradii ay kala kulmeen dalka Itoobiya. waxaana Talyaanigu sanadkii 1940 qabsaday dalka Somaliland iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka. The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping routes and on Italian operations across the Gulf. hoobiyo 30 bishii August ee sanadkaas ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiya badda cas waxay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay ka soo talaabeen gacanka cadmeed duulaanna ku yihiin magaalada dekedda ee Berbera taasoo keentay in Ingiriisku magaalada Berbera si degdeg ah uga baxaan. magaaladaasi Berbera waxaa laga daadguriyay ciidamadii Ingiriiska iyo xaasaskoodii iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo qaaday dhanka magaalada Nairobi. askartii Soomaalida ahaydna la geeyay magaalada Djibouti qoysaskoodiina loo qaxiyay dhanka magaalada Cadan. barasaabkii Ingiriiska ee Somaliland iyo eeygiisu waxay ahaayeen kuwa ka baxayay magaalada Berbera. bishii March 1941 ciidamada Ingiriiska ayaa dib u soo abaabulay oo duulaan ku soo qaaday ciidamadii Talyaaniga ee Berbera ka qabsaday halkaas oo dagaal qadhaadh ku dhex maray. ciidamada Ingiriiska waxa uu suura gashay goor dambe inay Talyaaniga ka saaraan deegaanadii uu ka qabsaday isla markaana gacanta ku qabtaan magaalada muhiimadda weyn lahayd ee Berbera oo wixii intaa ka dambeeyay ay Ingiriisku ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo ka mid ahaa dabka Leitteriga oo markii ugu horeysay
lagu xidhay wadooyinka magaaladaasi markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu sanadkii 1945kiina waxaa Somaliland ka bilaabmay dhaqaaqyo xornimo doon oo ku socda hanaan madaniya oo aan hubaysnayn kuwaas oo markii dambe u gudbay ururo siyaasadeed oo gumannada doona ugu dambeyntii 16 Juun sanadkii 1960kii Somaliland waxay madaxbannaanideeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska xilligaa waxaa hadallo taariikh ummadda u jeediyay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaar oo waqtiga ahaa mas'uulkii u sarreeyay siyaasadda Somaliland waxay tahay in la wada maqlay maanta waxa ay iska secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan mareynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxa ma dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asahatay inta meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladda la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala hubsanayay dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha joogay iyo dadku sida wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baaray bixi dadka markii taas cadaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dadka khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii inaynu dawlad ahaano ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay hayday joognaa madaxeedii asaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dawladnimo loo qayliyaa dawladweynan doonayna la yidhaahaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii horeeyay ayaan maanta helayno weyn garayn kuna jaxnay kamaanta inuu horeeyay kii ka weynaa waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo waliba maxay hayday qoontiisi dhaayo ayuu yiri la yiri dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana inuu soo galo asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas leeyahay ya rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aan soo galay midaynu caadada dagaalamayni buu haabiyay kayna maanta galayna imika galayna inoo harayna waxa weeye kayna nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinayna wixii san ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaan kaas way naga tagayeen قصيدة سبان عالم كانوا سوقيني إنسان كيساهينو زرم ويلو هلا غلايو زغل من تدروريو زيغدين قاميريو سقدخان وعيني كيسو زاري غلويدو زمال بيوكايا حديقا مزازيو زاحر كيجلبولي kahor intii aanay muddo 7 gudihiisa oo kaliya midnimo aan la mahadin la gelin dalkii Soomaaliya Talyaaniga xornimadiisa ka qaatay Somaliland waxay ahayd dal madaxbannaanidiisa haysta oo ay ka dhisan yihiin dhammaan haykalkii dawladda lahayd sida xukuumaddii golayaashii baarlamaanka iyo dawladaha hoose xisbiyadii siyaasadda lacag u gaar ah iyo waliba hay'adihii garsoorka oo ay taageerayeen ciidamada booliisku inkastoo muddo 30 sanadood ay ka shaqeynayeen midnimadii labada dawladood haddana ummadda Somaliland waxay ahaayeen kuwo markiiba dareemay inay si fudud gacmahooda uga baxday xornimadii ay dhibka badan u soo mareen waxaana muddo yar ka bacdi saraakiil military oo dhalinyaro oo reer Somaliland ay sameeyeen inqilaab ay dawladnimadii Somaliland ku soo celin lahaayeen hase yeeshee inqilaabkaasi ma noqon mid guuleysta waxaase isku daygoodu ka tagay dareen shacab oo muujinayay in ummadda Somaliland ay ka fikireen sidii ay dib ula soo noqon lahaayeen madaxbannaanidooda midnimadii kaga dhexluntay bilowgii sanadihii 80-aadkii qarnigeena dhaafina waxaa la aasaasay ururkii SNM oo horkacayay howlgallo naf iyo maalba loo horay oo dib loogu xoreeyay dalka Soomaaliland 10 sanadood oo halganka hubaysan socday ka bacdina waxaa dhintay xukuumaddii military ee xilligaa jirtay iyo dawladnimadii lagu mideysnaaba 18 May sanadkii 1991 shirweyne ay magaalada Barco ku martigeliyeen golihii dhexe ee SNM oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenkii ururkaasi mudane Xasan Ciise Jaamac
markii dambena noqday madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayna ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada somalilan ayaa shirkaa waxaa lagu miisaamay faa'iidada iyo khasaaraha ay ummaddii waqooyigu ka heshay midnimadii 30 sannadood soo jirtay waxaana mar kale lagu gaamiyey qodobo ay ugu waaweynaayeen 1 in somalilan madax bannaanadeedii dib ula soo noqoto 2 in la dhiso dowlad gacanta ku qabata maamulka dalka 3 in la abuuro cadaalad dadka u dhaxaysa xukunka dalka iyo wax kastoo kalena si siman loogu qaybiyo beelaha somalilan lana adkeeyo nabadgelyada waa kan mudane aadan axmed diiriye oo xilligaa shirweynaha ka dhex aqriyey go'aamadii waxgaradku ku gaadheen halkaas qodobada la soo qaaday qodobka koowaad wuxuu ahaa inuu mooyigaha isu taago iyo in koonfur raacada laga hadlayay waa jimlaha qodobka koowaad ahaa qodobka muddo dheer baa laga dooday aad baa loo lafaguray waxaa laga xisaabtamay oo dib loo bileelacay 30 sano ee aynu dowladda ahayn wixii faa'iido haddii aynu waqooyi nahay aynu ka helay iyo wixii khasaarayna soo gaadhay waa si dhaba looga xisaabtamay may ahayn shir caafiseedeed mu ahayn oo yani maaragtay si sadxiya arrimaha loo qaadanayo ama maxaan ku dhahay la isaga dul cararayo mana ahayn shir afduuba oo maxaan ku dhahay wax la kala maroorsanayo wuxuu ahaa shir si dimuqraadiyaed ah looga doonayo oo cid waliba codkeeda iyadoo xora iyo fikrad ay qabto ay maaragtay ka soo jeedinaysa oo ahaa arrintaa markii si dheer looga xisaabtamay waxay noqotay oo meeshii ka soo baxay in 30 sano wax faa'iidaa oo la taaban karo 3 qodob baa laga helay oo iyaga laftooda ku yimid dhibaato iyo tacab hawl badanna loo soo galay oo dadka inta xoogaa joog tahay waxa weeye dekada berbera warshada sibirkaa iyo berbera ka samaysan iyo wadada laamiga wax kale oo horumara oo waqooyi laga sameeyey waa la waayay kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wada waxaynu ognahay warshada sibirka inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo dhagaxana laga guro maxaan ku dhahay halka imankaa ka samaysan ilaa xadkaa inay gaadhay baa la ogyahay oo dadka xoogaa soo ogyahay wax faa'iidaa intaas baa dhinaca laga soo qaaday waxa dhinaca kale ku qormay oo iyana timid in khasaaraha aynu hadda ognahay ee ugu weyn yahay burburka iyo baabaa haysta maxaan ku dhahay ka muuqda magaalooyinkeenii ee naf iyo maalba loo baaba'ay inay ka yimaadeen israacii ay israaceen koonfur iyo waqooyi ayaa halkaa ka soo baxday markaa waxay noqotay labadii marka laysu miisaamay inay miisaanku u badan yahay dhinaca khasaaraha sidaa awgeed waxa la isku raacay oo shirkii isku raacay bal aragna israaci wuxuu inoo dhalee inaynu waqooyi gaar isu taago gaarkiisa isu taago oo aanu koonfur raacay oo aynu teena kala barqad baxno oo tijaabino teena waqooyi gaar isu taago waa la isku raacay qodobkaa koowaad labaad wuxuu ahaa in lagu dhaqmo shareecada islaamka qodobkaa isagaa markii runtii dood badan ma yeelan laakiin waxa weeye markii la eegay shuruucda kale ee maxaan ku dhahay magac kastaba ha loo bixiye bini aadamku sameeyo ee aynu ku soo dhaqmi jiray markii la eegay dhaqan xumada iyo qiyamka ka lumay dadkii ee dhaqankii iyo qiyamkooda muddadii dheereen maxaan ku dhahay daaquudkii dalka imika laga xoreeyey xukumayey uu nagu abuuray ee aynu gaadhnay heer xaaraantii iyo xalaashii aan wax kale soo caabin jirin oo la xalaashaday aad moodin xaaraantii la xalaashaday marka aynu eegnay dadkeenna oo aqlabiyadiisu imika tahayba ama xooggiisu yahay dadkii dhashay muddadaas aynu sidaan ahayn khariban ama intii ku caqli eegtay ee lagaba yaabo inay u haystaanba hagaagiba inuu cayn ka yahay waxaa la isla arkay inaan wax kaloo ina soo dabaali karaaba jirin waxa kaloo la isweydiiyey wixii aynu ka dagaalanay maxay ahaayeen waxay noqotay oo saldhig u noqotay cadaalad darro halkaana waxaa ka soo baxday baahideena koowaad inay tahay cadaalad inaynu helno cadaaladda halkay ku jirtaa markaa isweydiiyey
cadaaladdu waxay noqotay diinta islaamka oo inay ku jirto waxayna dhibtay oo wada ogsoonahay bahal laga qabyaalad oo iyo imtixaan dabada ku wata taana waxaa la isla gartay waxaasoo dhan lagaga bixi karaa inay tahay oo keliya innagoo ku dhaqana shareecada islaamka ee ilaahay inoogu talagalay kownkan markuu ina dhigay isagu uu inagu abuuray inaynu ku dhaqanno oo masaalixeenu oo cid ka taqaana ilaahay jirin uu ugu talagalay inaynu taa qaadanno ayaa iyadana la isla gartay halkaa waxaa soo gelaya qodobkii hore la xidhiidha oo ah waxa la yidhaahdaa haddaynu gaarsi taagno layna ixtiraaf maayo ictiraafka cidda laga doonayo waa bini aadamka oo yani maarta say doonayaan reegaysa ictiraafka laga helayaaba ayaa la leeyahay markaa annagu waxaanu isla garannay oo aanu mudnaanta siinay ciddaynu raali gelinaynaa inay noqoto ilaahay oo markaa qulubta bini aadamka xukuma isaga ayaa markaa cid walba inoo soo khasbi doona oo inoo fudaydin doona haddii aynu dariiqiisa raacno oo ku toosnaanona waxaan ku kalsoonahay inaynan wax dhibaato aan la kulmaynin marka aan sidaa aamino aan ku kalsoonaano aanu wada diyaargarowna inaynu fulino hubaalna waxaa haddaynu sidaa ku toosnaano cagta saara wadaaagaan ina wax socdaadayna wadaminaya magaqaano walooba dhinacaaga uga diyaargarow qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada waqooyi taas waxa weeye oon muran ku jirin in baahida koowaad badda ay tahay oo haddii aan nabadgelya jirin waxyaalahan aynu ka soo hadalno oo dhan waxba ka jiri maayaan wax la horumar jiri maayo dowladnimo jiri mayso walaalnimada aynu ku wada fadhinaana jiri mayso waxa la wax suroobayaan ma jiraan sidaa awgeed iyadana si wadajir ah ayaa la isla gartay oo la isugu waafaqay in nabadgelyadii waqooyi laga shaqeeyo oo la sugo allana lala kaashado ilaahay haynala qabto qodobka afraad wuxuu ahaa in si dhabta ah loo dhiso dowlad waqooyi oo loogu dhawaaqo taas iyadana waxaa keenay waxa aynu iminka ku soo jirray muddo 3 bilood iyo dheeraadna hadda xoo ahayn oo dalka joognay dowlad la-aantu dhibaatada ay leedahay waynu soo wada taabanno waa aragnay markaa baahida jirta awgeed ayaa qodobkaasna meesha loo keenay iyadana waxaa la codsanayaa oo madaxda ururka laga codsanayaa in si dhabtaa dowlad loogu dhawaaqo waqooyi taasina qodobkaas baa ugeeyey qodobka shanaad waxa weeye in golayaasha ururka iyo dowladdaba si cadaalad ah loogu qaybiyo beelaha waqooyi degan allahu akbar shareecada islaamka aynu qaadanaba ayna faraysa walaaltinimadeena ayna faraysa wada dhaqankeena ayna faraya ma wada dhaqanaanayno oo maxaan ku dhahay deen walaal ahaan mayna haddaynan cadaalad wax ku qaybsano ayna ku wada dhaqan bi ayi wasiila wax kasta oo aynu qaybsanayno iyo wax kastoo ina dhex yimaada waa ina cadaalad ku dhisnaada oo hadina taas ku sheegay